kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka maanta qodobada risaale ay idin diyaarisana waxaa kamid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo amartay in nolol ama geeri lagu soo qabtay cidii colaad ka horisa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. dhacdooyinka waxaa kale ku daawan doontaan dawladda Soomaaliya oo xirtay xadka Soomaaliya Kenya kala wadaagto dhinaca magaalada Beledxaawo. faafayna ka soo baxaya qasaare ka dhashay qarax gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM lagu leegtay gobolka Shabeellada Dhexe. Imaaraadka Carabtuna waxa uu dawooyin iyo agab caafimaad ugu deeqay maamulada Puntland iyo Somaliland. iyo madaxweynaha maamulka Puntland oo u mahad celiyay dawladda Imaaraadka Carabta dawooyinka ay kala soo gaartay. inta daawadayaal qodobada waaweyn risaale idin diyaarisay mar walba waxaad nagala soo kartaan baraheena bulshada sida risaale YouTube iyo Facebook aan ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxay amartay in nolol ama geeri lagu soo qabtay cidii colaad ka horisa magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ku sugan saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyagoo halkaasi u tagay wax ka qabashada dilalka aanooyinka qabiil ee la xiriira ee ka dhacay halkaasi. magaalada waxa ka dhacay kulan u dhaxeeya odayaasha dhaqanka degmada Walaweyn iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay sheegeen in talaabo laga qaadayo dadkii ka dambeeyay dhibaatadii ka dhacday degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in ciidamada iyo saraakiisha ciidamada danaba ay amar ay u qabaan in nolol ama geeri ay ku soo qabtaan dadkii ka dambeeyay dhibaatadii iyo dilalkii ka dhacay degmada Walaweyn. waxa uu hadalkiisa intaasi uu ku sii daray in dadkii ka dambeeyay dhibaatadaasi hadii la keeno ay meedkooda ay cadeyn doonaan in uu dhiigiisa uu banaan yahay isla markaasina uu waday dhibaateynta dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale hantidoodaba. waxa uu ugu dambeyntii uu sheegay in aan laga hari doonin cidii dadka dhibaateysa dhammaan ciidamada danab ay waajib ay ku tahay in ay talaabo ay ka qaadaan cidii dhibaateyn ku wada dadka shacabka ah sidoo hadalka u dhigay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya. degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ka dhacay dilal la xiriiray aanooyin qabiil iyaga oo ay dhaceen dhacdooyin argagax lahaa oo ay kamid ahaayeen in qofka la gowraco ama qofka inta la dilo kadibna meedkiisa la gubo taasi oo walwal ku abuurtay dadka ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. waxay noqonaysaa dhacdooyinka ka dhacay degmada Walaweyn kuwa aan indhaha laga dabooli karin maadaama ay ahaayeen kuwa dadka walwal ku abuuray. dawladda Soomaaliya waxay xirtay xadka Soomaaliya Kenya ay kala wadaagtay dhinaca degmada Beledxaawo ee gobolka Gado. maamulka magaalada Beledxaawo ee gobolka Gado ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay xireen gabi ahaanba isku socodka dadka iyo gaadiidka xadka u dhaceeya magaalooyinka Mandheera iyo Beledxaawo ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. talaabadani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii magaalada Mandheera ee dalka Kenya ay xuduudna la leh magaalada Beledxaawo laga xaqiijiyay laba kiis oo la xiriiray xanuunka coronavirus-ka. gudoomiyaha degmada Beledxaawo ee gobolka Gado Axmed Barre Sheekh Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in ay qabaan walwal aad u sareeya taasi oo la xiriirta labada kiis ee cudurka coronavirus-ka ee laga helay magaalada Mandheera maadaama labada magaalo ay xiriir ay leeyihiin dhow. waxa uu sheegay in gudoomiyuhu in gabi ahaanba ay joojiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka labada magaalo ee Mandheera iyo Beledxaawo. talaabadaasi ayaa waxa uu ku sheegay in laga hortagayo cudurka COVID-19 isla markaasina ay xadka ay geeyeen ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay horay ay ugu dhawaaqday talaabooyin dhowr ah oo ay uga hortagayso xanuunka COVID-19 iyadoo ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ah sidoo kalena ay ku dhawaaqday in la xiray isku socodka gaadiidka iyo dhulkaba cirka iyo dhulkaba taasi oo ka dambeysay kadib markii COVID-19 laga helay magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale Hargeysa taasi oo dhalisay in duulimaadyadii gudaha la hakiyo. dhacdooyinka ayaa daawanaysan daawadayaal qaybihii dhexe ayaanu isla soo gaarnay bal markaana waxaanu eegi doonaa gobolka Shabeellada Dhexe. faafayna ayaa ka soo baxaya qasaare ka dhashay qarax gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM lagu leegtay gobolka Shabeellada Dhexe. wararka laga helayo gobolka Shabeellada Dhexe wararka laga helay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee AMISOM qaraxa qasaare geystay lagu leegtay wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe.
qaraxa oo ahaa miina nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa agagaarka tuulada Gololey oo ku taala dhinaca waqooyiga degmada Balcad lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo ka baxay degmada Balcad kuna sii wajahnaa magaalada Jowhar. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ciidamada Burundi xilliga qaraxa lagula eegtay ay ahaayeen kuwa wadada lugeynayay oo howlgallo ku jiray hase yeeshee aysan cadeyn karin qasaaraha qaraxaasi ka dhashay. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa iyagoo sheegeen in qaraxaasi qasaare ay ugu geysteen ciidamada Burundi oo kamid ah ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya, taasi oo dhalisay in ay qasaaruhu waa in qaraxaasi ay u geystaan ciidamada AMISOM. Al-Shabaab Imaaraadka Carabtuna waxa uu dawooyin iyo agab caafimaadba uu gaarsiiyay maamulada Puntland iyo Somaliland, taasi oo ay ugu dambeyntii maamuladu ay ka gudoomeen dawladda Imaaraadka Carabta. diyaarad sidii gurmad kala duwan oo dhinaca caafimaadka kaasi oo loogu talagalay cudurka COVID-19 ayaa maanta waxay ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. diyaaradani ayaa waxay ka timid wadanka Imaaraadka Carabta waxaana la sheegay in ay wado dawooyin iyo qalab caafimaad oo ay ugu deeqday Somaliland kuwaasi oo isugu jira kuwa looga hortagayo COVID-19 iyo sidoo kale kuwa lagula tacaalayo. wasiirka caafimaadka Somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu mahad celiyay dawladda Imaaraadka Carabta gargaarka ay soo gaarsiiyeen xilli dunida dawooyinku ay kayd ay gashteen dawooyinkoodii sidoo kalena gurmadidii isku fidinay ay yaraadeen. sidoo kale isla garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa maanta ka degtay diyaaradda sidee agab kala duwan oo loogu talagalay cudurka COVID-19 oo kiisas kamid ah laga helay Soomaaliya. diyaaradda oo ka timid wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxay waday dawooyin qalab caafimaad oo ay ugu deeqday Puntland kuwaasi oo isugu jiray kuwa lagaga hortagayo cudurka COVID-19 iyo sidoo kale kuwa lagula tacaalo. wasiirka caafimaadka Puntland warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu mahad celiyay dawladda Imaaraadka Carabta gargaarka ay soo gaarsiiyeen isla markaasina waxa loogu talagalay yiri in loo isticmaali doono sida ugu hagaagsan ee ah in cudurka lagula tacaalo. gargaarka Imaaraadka Carabta ay keentay Somaliland iyo Puntland ayaa ku soo aaday kadib markii cudurka COVID-19 laga helay gobollo badan waa gobollo laga helay Soomaaliya ku yaala walow magaalada Muqdisho laga helay kiisaska ugu badan. dhanka kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu mahad celiyay dawladda Imaaraadka Carabta kadib agab caafimaad oo ay soo gaarsiisay iyo sidoo kale kuwa kale oo lagula tacaalayo COVID-19 oo Puntland ay gaarsiisay. madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu mahad celiyay dawladda Imaaraadka Carabta agabka caafimaad ee loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga COVID-19 kaasi oo ay Imaaraadka Carabta ugu deeqday Puntland. waxaanu mahad celinaynaa dawladda Imaaraadka Carabta gargaarka bini'aadantinimo ee ay na soo gaarsiisay oo maanta Boosaaso ka soo degay waa agab caafimaad oo lagu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga COVID-19 xilligan waxaa lagula dagaalami doonaa adduunka oo dhan oo ku jira la dagaalanka cudurka halista ah COVID-19 oo si xawli ah u sii fidaya. waa loo baahan yahay in la iskaga hortago oo lala tacaalo cudurka COVID-19 oo saameyn kula dunida ayaa uu yiri madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. waxaana wasaaradda Soomaaliya ay sheegtay in haatan ay la tacaali doonto xanuunka COVID-19 iyadoo ay dawladda Soomaaliya sheegtay in la keenay qalabka loogu talagalay cudurka coronavirus oo laga heli karo dalka guud ahaan sida ay sheegtay gudaha Soomaaliya lagu baari doono. qodobka ayaa ugu dambeeyay dhacdooyinka daawadayaal iyagoo inta tafaasiishooda ka dhameystiran tahay caawa 9:00 fiidnimo barnaamijka dhacdooyinka Risaala muujada FM ka 102.2 MHz ayaad ku dhageysan doontaan inta ka horeysana nabadgelyo.